dalka Yemen waxaa ka taagan masiibo bini'aadanimo oo sababtay colaadda halkaasi ka taagan sanadkii 2015 Sacuudiga ayaa bilaabay dagaalka u dhaxeeya Xuutiyiinta iyo xulafada Sacuudiga. Iminka 14 milyan oo qof ayaa macluuli ay la soo diristay sida ay sheegtay qaramada midoobay. Waxaan idinkaga digaynaa in muuqaalada warbixintan ku jira qaar argagax leeyihiin. way daciiftay nafaqadarrana way haysaa Nuuradiina oo 5 bilood jirtay dirqi bay ku nooshahay. waxay ka mid tahay 2 milyan oo carruur oo Yemen ay macluuli ku hayso. aabaheed waxba uma qaban karo, waa shaqaale dawladeed, wax mushaharana lama siin. bangiga dhexe ee dalka ayaaba la xidhay 6 bilood ka hor. أنا عملت لها فحوصات في المحافظة حقي. بالكهر waxaanu geynay dhakhtarka tuulada, laakiin lama hayn caanaha ay u baahan tahay. annaguna lacag uma hayno. u malayn maayo inay noolaanayso. aad ayay u tamar yar tahay. أكثر واتجهت إلى مستشفى. dadka Cabdalle oo kale ah xitaa haddii cusbitaal la geeyo xaalkoodu uu adag yahay. daawooyinku waa ku gabaabsi, shidaalka iyo korontaduna way yar yihiin. ugu yaraan kala badh cusbitaalada Yemen waa la xidhay. dhibaatada ugu weyn ee halkan ka taagan waxa ay tahay waxay mar ahaan jirtay dekedda ugu mashquulsan Yemen. 5 wiish ee alaabada dejin jiray waxaa gubay ciidamada xulafada Sacuudiga bishii August 2015. Sacuudigu dhankooda waxay sheegeen in wiishashkan loo isticmaali jiray in Xuutiyiintu hub kula soo degaan. barnaamijka cuntada adduunka ayaa imika keenay wiishash cusub dekedda Xudayda, laakiin Sacuudiga ayaa diiday in la keeno qalabkaasi. dalka Yemen cuntada 90% dibadda ayaa laga keenaa, markaa haddii dekedda xaniban tahay waxaa adag in cunto la helo. markii ay BBC-du halkan joogtay xagaagii hore, cusbitaalladu waxaa ka buuxay carruur ay nafaqadarra hayso. waxaana ka mid ahaa Saliim oo 8 jira. nafaqadarra xun baa ku dhacday, dabeetana nidaamkiisa difaaca jidhka oo dhan baa burburay. waa kan Saliim imika, inkastoo aanu khatar ku sugnayn, haddana caafimaadkiisa muddada dheer ayaa laga warwarsan yahay, weli ma socon karayaba. waxaa kaloo aanu la kulannay Faadumo oo 6 bilood jirtay. tan iyo markii noogu dambaysay duqayntii Xudayda way sii cuslaatay. hooyadeedna way kari weyday inay cusbitaal geyso. Faadumo bishii hore ayay dhimatay. meel kasta aad dunida ka joogto waxaad wararka ugu dambeeya aad ka daalacan kartaa BBC Somali app adigoo isticmaalaya mobilkaaga. waxaad gashaa Google Play Store ama Apple App Store, raadi BBC Somali kadibna si bilaash ah ku soo degso. sidoo kale si aad idaacadda u dhageysato waxaad wicitaan ka dhex samaysan kartaa gudaha appka. wicitaanka waxaa suurtagal ah inuu bilaash yahay ama inuu lacag yahay. fadlan ka hubi shirkadda ku siisay adeegga mobilkaaga.